وكواعب أترابا. waa xaflad si qurux badan loo soo agaasimay oo loo qabtay arday dhamaysatay quraanka kariimka kuwaas oo ka dhameeyay markaska Ibn Jazari ee magaalada Mandera iyo kuwa ka gudbay farbarka. أمامكم أحد طلبة مدرسة ابن الجزري. ardayda quraanka dhamaystay oo ahaa dufcadii afraad ayaa gaaraya 20 halka kuwa farbarka ka gudbay ay gaarayaan 40. xafladan oo lagu qabtay hoolka shirarka hotelka Granada ee magaalada Mandera ayaan loo kala harin waxaana ka soo qayb galay madax culimo waalidiin iyo arday qalin jebinaysay. waxaa ka mid ah marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan xogayaha joogtada wasaaradda waxbarashada ee dowladda ismaamulka Mandera, agaasimaha wasaaradda waxbarashada ee dowladda dhexe, meeyarka magaalada Mandera, shanamsiye iyo culimo waaweyn. ugu horeyn xafladda ayaana lagu daafuray aayadaha quraanka kariimka. الصالحات أن لهم أجرا كبيرا والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. waxaa xigtay tartan imtixaan oo loo qabtay ardayda farbarka ka gudbay ayadoo sidoo kale arday kale ay soo bandhigeen waxyaabaha lagu barto markaska. yaasiin wal qur'aanil hakiim إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم مثل الدعاء والذبح. ما هي السورة التي تلقب بقلب القرآن؟ هي سورة ياسين. كم عدد السجدات في القرآن؟ عدد السجدات 15. ماذا تقول قبل النوم؟ أقول باسمك اللهم أموت وأحيا. Sheekh Ibrahim Aweys waa maamulaha iyo aasaasaha guud ee markas Ibn Jazari waxa uu sheegay in xaruntan la aasaasay sanadka 2019 ayna soo saartay 150 arday oo dhameystay quraanka kariimka kuwaasi oo markaska ka baxay. ilaahay fadligiisii saaki oo subax khamiis ah ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadligiisa iyo karamkiisa wuxuu noogu suurtageliyay inaan maaragtay aan qabsano markaska Ibn Jazari Integrated School inaan maaragtay qabsano xaflad qalin jebin ah oo maaragtay arday laba qaybood ah ay ka qalin jebiyeen ardadaas oo qaybta maaragtay quraanka kariimka khatimtay oo quraanka dhameysay iyo qayb oo farbarka hadda uu dhamaaday oo farbarka hadda ka baxaya oo maaragtay quraanka bilaabaya ayaa maaragtay saaki noo qalin jebiyay. dhinaca kale culimada waalidiinta iyo madaxda kale ka qayb gashay xafladda oo qaarkood caruurtooda halkan ay akhristaan ayaa bogaadiyay waxbarashada markaska. waxaan noo soo bandhigay oo na tusay waa wax ajaa'ib badan ayaana na tusay meeshan waxayna tusinay in juhdi fara badan la geliyay macallimiinta dadaal badan inay sameeyeen haddii ay noqoto xagga farbarka haddii ay noqoto maaragta quraankii haddii ay noqoto culuumi sharcigii waxaan noo soo bandhigay hadda noo akrinay axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam fiqhigii islaamka tawxiidkii ما شاء الله المهن يريركا oo quraanka saan u akhrinayo ilaahay baa horta ma iskale alxamdulillah marka waalidiinta iyo dadka
meesha imaaday laba kalimaad midba mid leeyahay waalidiinta kelimadan leeyahay waxaa waaye allah idin barakeeya dadaal badan baa soo suubiseen ilmihii taxfiid baad geyseen qur-aankii bay barteen marka haddii aad halkaas ugu joojisaan ayagoo intaan lego yar yara wixii aad ku soo rafaadeen gacantay ka baxaysaa qur-aanka ilmaha markuu barto diintii kale haddana ha loo sii bilaabo waxa barteen cunuga u baahan yahay alxaaja alwujdaaniya qalbi ahaan cunuga in loo sheekeeyo la ammaano aan la caayin waad fool xunta aan la dhihin doqon baata aan la dhihin muuqaalkiisa aan wax laga sheegin shakhsiyadiisa aan wax laga sheegin isbarbardhig aan lagu samayn oo cunugaana kaa fiican hebel baa kaa fiican aan la dhihin waxyaalahaas waa xuquuqda ilmaha ay leeyihiin oo sharcada ay noo sheegtay marka jazaakum allahu khayran ban aad dadaalna qur-aanka qalanka jibiya ma ogin qur-aanka ma baranayn qur-aan hal qalan laguma barto ogaada aniga waxaan u malaynayaa anoo yar oo qaangaarin ayaan dugsi fadhiistaan bilaabay 1982 gaan dugsi bilaabay ilaa maalintaas ama waalidan ka ah ama waan dhigay waan garan sida hadda shaahada ay juxa laga sheegay aad baan u naqaanaa waalidiina inag iga hay kelix u keensanayana jira farxadun baa maanta aynoo tahay maadaama muddo hal sana ardaydeennii qalinjibintoodii kuwa farbarka maanta aan soo gaarnay aniga ardaydeydii kuwa hadda qur-aanka ku jiro iyo kuwa hadda farbarka hadda soo dhameeyay wayaan قالوا لي انت قالوا لي شرفتي قبضتها ايمانك قبض رب ندورة ما سدين مدونكي سي الى جنة الفردوس رب توجين مدونكي سي جنة الفردوس ابالكي سي نغدون دندن رب غدنا حفيدك فربرك يكون قران كريمي كاد با ugu faraxsanahay ilaahay noo barakeeyo يا اولادي سن الله اولاد سيو يقول لي جاسين سنت ربي سن جاسينا marka hooyooyinka waxaan ka codsanaynaa inay dadaal badan sameeyaan aadna waad u mahadsantihiin adinkaana dadaal sameeya marka aabayaasha bas yaana lagu dhaafin magaalada waa la qabsaday waxaa magaalada qabsaday wax la dhahaa drugs idinka caruurta dugsi waan barnay alxamdulilah madrasa waa la geeyey alxamdulilah laakiin maxaa ka dambeeyey waa caruurtii inaa la ilaaliyo waay meelahana ambiiraa la imaana waxbaa ku hoos jira webigaa la aadaa waxbaa ku hoos jira marka magaalada waxaa lagu gadaa qamri bangi guryaha lagu gadaana anaka iska leh marka waa inaan caruurtan ilaalino ما شاء الله جزاك الله خيرا شيخ إبراهيم وقت كم ورمنو يامني بروجرام تنتا حفلة تيولة هنا مرقوبة يامن وانا سيهو جدالا زايدا أركان خب دي تناف نيامت وانا سيه دوكسيني أو أركان خب نميو يامني متي واجراف نيامني كوتا أرجع دنام الماضي كون شفتي وانا كان قراني في قران كسون انت أكريب قالتشريه متان رافوده أكخف لا يامني رافودن مالي غير أربعة لالا دينني أرمى كائن خالتي تا بوجي يركان قابو خرطاس يركان قابو خلام فرته وخره جزاكم الله خيرا وردازي في معلمين تسنتدال دستام راقسته مدك المعلمين also ما هذا وعلنا سببته waxaan u jeednaa dadaalka ay sameeyeen waana la hordhigay ilmaha say wax u aqrinayeen say wax u sameynayeen marka sharaf ay guleeyihiin waxaan haddan aan aad u mahadcelinayaa waalidiinta meesha waxaan arkaa inay u badan yihiin hooyooyin ragga ma joogaan waan arkayaa marka waxaan arkayaa guul kastoo la gaaro inay hooyo ka dambayso ana hooyo korisaanahay maya macallimiintan xafladan aad u wanaagsan maanta nagu soo dhaweeyeen waxaa kalan u mahadcelinaa waalidiintan dadaal aad muujiyeen oo ilmahooda heerkan gaarsiiyeen u fiirsada cunug alle cunugii waalidkiisu uu fiican yahay waxna waa barana waxaan halkan ugu mahadcelinayaa managementka oo aljazaari aad bay u dadaaleen dadaalkooda every year sanad walba way qabtaan graduationkaas oo aad maaragtay bilicdiisa ay maaragtay ay nuureysa magaalada dhan laga yaqaano maalinta ay graduation ay qabtaan magaalada dhan ayaa laga yaqaanaa so anagna hadda badbaadis waxaa hadda ugu dambeeysa xagga diinta macallimiinta maxaa la dhahaa annagoo naftaayna u naxayno adduunkayna iyo aakhiradaayna annagoo u naxayno macallimiinta iyo madaariista iyo dugsiga insha allah aan garab siino wax badan baa la sheegay hooyo zayd ay muhiim u tahay
gabarta dabe inta istaagaysa oo wax akhri la dhahay oo kuwan hadda farbaradka gabartayda ku jirtay gabarta zaid aan u jeclahay markay yareed oo dugsi bilaawaysay oo markay hooyada dugsi geysay kadam subax kasta way oysa intay la qabsanin markay oysa anigu waxaan dhahaa marka keen hoostayda saaxatee dhaaf maamada waa iga hoos jirtay laakiin maanta waxaan ogaaday hooye inaan qaldanaay oo hooyad saxsaneed kadam 3 bilood 4 bilood markay gaartay ayada murugsanaysa aan arki jiray bari salaadii hooy 11 saac li kici dugsigaan ordrabay marka mireedan maanta waan aragnay waalidkii waa maqan yahay ardayda ayaana la guddoonsiiyey shahaadooyin ayadoo xafladda ay ku soo dhamaatay si qurux badan Ibraahim Nuur Cabdiraxmaan warbaahinta Dhaawa magaalada Mandheera